الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan Ilaahay baa mahad leh inaan idinka mahad celiyo soo dhaweyntiinan diiran reer Laascaanood aad baad ugu mahadsantihiin aad iyo aad kun jeer baan idin mahad celinayaa. anaga socodkayga waxaan u maleynayaa waynu wada ognahay socodkaygu waxa weeyaan wafti aan ka socota gobolka Cayn waxaan u soconaa ka qaybgalka shirka ka dhacaya magaalada Laascaanood ujeedkiisu leeyahay in aynu noqono xor oo aynu ka baxno gacan kale aynu ka baxno waxaan anigu ka faa'iideysanayaa halkan waxaan ugu baaqayaa dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed nabad baan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa inaynu nabad ku wada noolaano waxaan ugu baaqayaa in ujeedkayaga aan fulino oo aanu ka fulino sida aanu anigu u doonaa oo dhacdo waxaan ku codsanaynaa dadyoga aanu wada degno ama wax naga dhaxeeyaan inaanu nabad ku wada noolaano baan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland maamulkan halkan jooga in ay dhulkan iyagoo si nabadgelya ay uga baxaan baan ugu baaqayaa in aanad colaal kale aynaan dib ugu noqon waxaan ugu baaqayaa sida ay u jecel yihiin inay nabad ku noolaadaan oo Burco iyo Hargeysa ay nabad ugu noolaato inaanu ugu noolaano nabad dhulkayaga maanta Soomaali isma gumaysan karto Soomaali gumaysan kara ma jiro xoog dawladaha waaweyn baan cid waxba kaga qaadin waxaan markaa rajaynayaa inay fahmaan shucuurta dadkan isu soo baxaya anu madaxweyne meeyahay wasiirna meeyahay xildhibaan cid xil u haya meeyahay waxaan ahay isim waxaanu ku soo dhaweynaynaa garaadkii guud ee gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle waxaa lagu soo dhaweynayaa magaalo madaxdii gobolka Sool ee beelweynta Siciid Harti degmadiisii Laascaanood waa garaad Cabdullaahi Axmed Sulub garaad ku soo dhawow golihii dhaqanka oo aan maanta mid ka maqnayn oo shir weyn ah ka tashiga dhulbaxantaa lagu leeyahay berrina aynu soo wada dhaweyn doonaa nala socda garaadkii guud garaad jaamac garaad cali garaad jaamac aynu magaalada ku soo dhaweyn doono garaad kamida garaadada isimada dhulbaxante khaasatan beelweynta Aadan Axmed ama anigu waxa la baarar sameeyay sida garaad بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن كسر دويننا قلبت مقال مدحضة قول رسول الله سعنود قال عبد الله أحمد دعالي يوفد بلارنا وهقامين يوكيم قولك عين Buuhoodle magaalo madaxdiisa oo ka kooban Cuqaal iyo waxgarad iyo guurta iyo Nagarbood waxaan leenahay garaad ku soo dhawow magaalo madaxdii halganka Soomaaliyeed ee Laascaanood garaad ku soo dhawow hooyada daraawiishta garaad ku soo dhawow halganka iyo midnimadii ummadda Sool Sanaag iyo Cayn garaad ku soo dhaweynaa garaadka waqti badan ilaa maanta aynu bacad u taagnay qoraxdii ay nagu kululaatay 12 duurnimo soo baxnay garaad horta ku soo dhawow gobolkaaga Sool iyo golihii gobolka Sool garaadka ka soo kicitay gobolka Cayn aad baan garaadka u soo dhaweynaa hadana Cuqaasha gobolka Sool garaad Cabdullaahi Axmed Ducaale Axmed Sulub garaad oo garaad cusub oo waliba u baahan deegaanka iyo dadka ay aad u xiisaynayaan oo garaadka beesha Aadan Axmed garaad ku soo dhawow gobolka Cayn aad Cuqaasha kale gobolka oo iga dambeynaysa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa garaad Cabdullaahi Axmed Sulub garaad soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaa gobolka Sool oo maanta xornimo u baahan xoraan ah oo calamadii Soomaaliya iyo calankii Khaatimo lagu dhaxsito ma sha Allah waan ku soo dhaweynaynaa garaad cadawguna ha ka naxo waxaan sheegayay reer Khaatimo ama reer Siisiina ha ku farxeen way garaad soo dhawow garaad waan ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba gobolka Sool bismillaah maanta waxaan soo dhaweynaynaa garaadkii guud ee gobolka Cayn waxaan leenahay garaad soo dhawow kugu maalay gobolka Sool baan ku soo dhaweynaynaa garaad dadkaaga oo ku jecel dalkaaga oo ku jecel oo u baahan maanta masiirkooda inaad ka taliso oo masiirkooda meel u saarto
garaad ku soo dhawow waxaan ku leenahay garaadkayga oo in badan sugaynay oo qorrax u taagnayn saaka 10 subaxnimo gurigayga ka soo baxay anigu garaad Cabdullaahi waxaan leeyahay garaad soo dhawow 10 subaxnimo gurigayga ka soo baxay ilaa hadda aadaan ku taaganahay oo gobolku sii dhacayo waan ku jecelahay garaad masiirkayga maanta inaad meel saartaan doonaynaa